halkiis oo idaacad muqdisho ku taala ee dowladda federaalka iyo booliiskeedu iyo hay'adaha amnigu intay weerareen la wareegeen antiroorkeeda furteen sidii dhici jirtay oo shabeelle ku dhacday oo Universal TV ku dhacday oo radio kulmiye ku dhacday oo aan ognahay oo radio dalsan maxay ahayd madaxdeeda lagu xiray oo radio wuxuu ahaa risaale lagu xiray oo wuxuu ahaa radio danan lagu xiray idaacad magaaladan ku taalo oo aan suxufiyiinteeda la xirin ama aan xarunteeda la weerarin weerartahay laakiin saddexdaas sano oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dheeraadka uu joogo ma jirto hal station ama hal idaacad oo dowladda federaalka Soomaaliya ay weerartay halkiisa ugu dhawaa kiis wuxuu ahaa Universal TV ka dhacay Universal TV kiiska ka dhacayna ma ahayn kiis saxaafad iyo shaqadeeda iyo caburin la xiriiree wuxuu ahaa kiis qaybta turbatariyada canshuuraadka iyo institutionkaas wax ka dhaxeeyay iyo canshuur bixin wax la xiriir u ahaa iyo muran ka dhashay ciidankii loo soo diray inay maxay ahayd ama warqadii soo gaarsiiyaan ama anaana kamid ah dadkii soo farageliyay ee meeshii yimid ee ka hadlay ee runta ambaareeyay ee u sheegay waxay ahayd haddii xitaa canshuur iyo wax la xiriir uu yahay inaad usoo martaan waddo sharci ah oo aad dacweysaan laakiin ma ahayn wax shaqo saxaafadeed la xiriira laakiin wax madaxweyne farmaajo uu amray wariye bay daba jooga ama mid Kismaayo jooga ama mid Hargeysa jooga ama mid Garowe jooga ma aha marka waxaa fiicneed inay si cad u qeexaan waxyaabaha tacdiiday ka hadlayaan waxyaabaha ay sheegeen maanta oo runtii u baahan in ummadana laga darjiyo lagana jawaabo waxaa kamid ah waxay nagu eedeeyeen inaan xitaa dil samayno mana jiro 2018 u dambeeyay wariye gacanta dowladda ku dhinta oo askari booliis uu toogtay maxkamada la geeyay xukuna dhacay oo la fuliyay maxay ahayd halkaas dhacdo wixii ka dambeeyay yani gabadha ku dhimatay hodan maaleeya iyo gacma dheere Kismaayo ku dhintay dhacday qarax shabaab ay ku dhinteen wiilka gacal ee ku dhintay muxuu ahaa Owdeegle qarxin shabaab ku dhintay marka xitaa kiisaskii argagixisadu dadkii qiimaha badnaa ee naga dishay waxay u soo xawileen dawladdu inay dishay oo maanta eedahooda kamid ahaa marka halkaas waxaa kaaga muuqata in yani ay u baahan tahay in dib loo faaqido numberska